ولا ليال قفك بني آدم كاي دونيدا مركا وجوغو wuxuu marayaa marxalada kala duwan marxaladii waxay ahayd uurkii hooyada marka aad shiifti waa laga soo saaray thumma sabila yasara ilma yaro sabiyaad ahayd waxoogaa kuray baad noqotay dhalin yaraad noqotay nin gadhmadooba ah waxoogaad noqotay waxaad noqotay nin xoogiisii buuxsamay oday baad noqotay waad asaasaqday oo cimrigaagii waa dhaafay inta إلهي وحو تلمام هيركا مركو غارو قفكو dad badan oo dadka kamidihi in aqligoodu caruurto kale sabiga uu noqonayo likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a baka la garan maayo qofki sabi oo kale uu noqonaya maxaa xiga geeri baa xigta dunidan uu ka guuro oo aakhira u wareego noloshaasi waa in yaro kooban marxaladaha midiba ay mid bedelayso ee aad marayso qof yahow bani aadamkaahi waa waqti kooban marka loo eego nolosha dheer iyo sadcaalka fog ee ku sugaya ee sakaraadka ka bilaabmaya iyo marka ay naftu ka baxdo waa nolol aan laga sooban noqonayn baad ku socotaa meesha aad ka imanaysana waa nolol laga tegayo qofka aqliga lihi waa qofka safarka fog u tabaabushaysta inta uu joogo dunida is ururiya oo ilaahay inuu la kulmaya ku tala gala qofka khasaarayna waa qofka is ilaawa ee noloshan yare kooban ilaaway wixii halkan dunida loo keenay dabeetana si dayaca dunida uu kaga tago loona baqayo marka uu godgalo ilaahay la kulmaya subhanahu wa ta'ala talawacan baa rasuulku bixiyo wuxuu yiri xadiiska saxiixa ah shan arrimood oo qof yow bani aadamka kugu imanaya soo socda intaanay shantaasi kugu iman shan ka horeysa la kaale waxaad ka faa'iideysataa qof yow bani aadamkaahi iminka dhalinyaro tahay dhalinyaronimadaada ka faa'iideyso inta aadan gaboobin haddaad noolaato gabow waa lama huraan caafimaadkaaga ka faa'iideyso inta aadan bukoon waxa alla ku siiyey adduunka uskaga ah ka faa'iideyso alla ugu dhawow waajibka lagu leeyahay ka gudo intaanay farahaaga dhaafin adduunyadu ama adaa dhaafaya ama iyada deeka tagaysa firaaqadaada ka faa'iideyso inta aadan mashquulin ka faa'iideyso noloshaada ka faa'iideyso noolaan maysida inta aadan geeriyoon baa rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam waxa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka waxa u khayr badan qof ilaahay dunida cimri siiyey amal wanaagsan ilaahay ugu daray subhanahu wa ta'ala waxa dadka u ayaan daran mid dunida cimriga loo sii daayay cimriga loo sii daayay amal xunna oo kulli faaqay waxa uu kororsadaaba waa dhibaato iyo lugooy walaalayaal marka laga guuro gurigan adduunka waxa loo guurayaa guri aakhira la yiraah guriga aakhira la yiraahdo waa deegaamo badan buu ka kooban yahay deegaanka u horeeya waa qabriga oo qofku galayo ku hoyanayo rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ah aakhira marka la tago ee ilaahay uu dadka inuu kala xukumo u yimaado yawma yaqumu an-naasu lirabbil alamin oo makhluuqu halka tuban yahay qofkii muuminka aha si gaar ah alla ula faqaya makhluuqa iyagoo aan arkayn oo aan maqlayn oo aan ogeyn ayuu si gaar ah ula soo baxaya ilaahay asturkiisu alla ku asturaya markaasuu qofkii la hadlaya alle wuxuu ku oranayaa dambigii caynka ma samaysay dunida cishadii aad joogtay ha ilaahu waa sameeyay dambiga ma samaysay waa sameeyay dambiga ma samaysay waa sameeyay markuu is yiraahdo ku dhamaatay xumaanta kuma harin wallahi xaalku waa kugu adag yahay ayaa alla wuxuu oranayaa satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm dunida markaad joogtay waxa aad sameeynaysid dadku kuma ogeyn ana ku asturay oo ku ceeb qariyay maantana waa ku saamaxay dabeetana malaa'iktii ayaa lagu amrayaayo kitaabkii bay gacanta midig uga dhiibayaan gaalkii iyo munaafiqii iyo kuwii liitay wixii khalada iyo wixii dambi ay galeen makhluuqiyo tuban banaankii halkaas looga dhawaaqay ala la'natullahi ala adh-dhalimin fadihad iyo ceeb ba halka kaga dhacaysa walaalayaal cisho walba
waxaynu aragnaa mayd la sii sido gelin hore ama gelin dambe mayd la sii sido ama waxaa laga yaabaa xabaalo iyo qubuuro inaynu ag marno oo aynu aragno laakiin war uma hayno xabaashan gudaheeda waxa ka socda qabrigan iyo xabaashan qofka la dhigayo wax ka socda war uma hayno waxaanse shareecada ku haynaa midna godkiisu waa ku ololayaa waa dab naara midna godkuu ku barwaaqaysan yahay oo nicmo iyo jannu ku haystaa sida rasuulku iyo diintu inoo sheegtay alla ka warramay subxaanahu wa tacaala isweydii meeye waalidkaa mee xagguu jiraa xaggay qabteen aabbahaa meeye waalidkiina dhalay waalidkii sii dhalay mee walaaladaa meeye jaarkii meeye dadka intaa taqaanay xaggay qabteen waa ka tageen adduunyo bal inta qof walowba inta aad taqaani ee ilaahay oofsaday bal dib u eeg aad bay u tiro badan tahay xaggay dadkaasi qabteen qabri bay ku hoydeen dunida waa ka laalaabteen ehelkii iyo farxadday dhex joogeen dadkoodii ubadkii iyo awlaaddii adduunkii iyo jagadii iyo kursigii maalkii la haystay laydharkii daarnaa furshaantii lagu hurday raashinkii la cunayey maryihii la xidhanayey xaragadii iyo gawaadhidii hawlahaasoo dhan waa laga dhex baxay xaggee la qabtay qabri baa la galay qabrigow maxaa tahay waa wax dhirirkaaga la eg oo ballacaaga la eg oo doc waliba ciidi kaa xigto dusha waa ciid hoos waa ciid xaggan waa ciid xaggan waa ciid barkin ma leh gogol ma leh maro ma leh kaba ma leh laydh ma leh wehel ma leh xaas ma joogo carruuri ma joogto waalid iyo walaal ehel iyo sokeeye waxaan maanta aynu isku baacsanaynaa ciidimala joogto keligaa baa jiifa camalkaagii baa kula jaara hadduu xumaayo hadduu wacnaa isagaa kula jooga wax kaloo kula joogaa ma jiraan isagaa kuu wehela halkaasaad gelaysaa halkaasaad ku hoyanaysaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qabriga markuu ka hadlayay qabrigu waa deegaanka ugu horeeya ee aakhira buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cuthmaan ibnu cafaan waad garanaysaan ayaa lagu yidhi cuthmaanow marka aad qabri qof la aasaya timaado waad ilmaysaa ilmada kaa soo qubataa garhkaaga way qoysaayo way soo dhaaftaa ilaa laabtaaday ku dhaadhacdaa marka janno iyo naar la soo hadal qaado sidaa uma oydid cismaanow maxaa dhacay wuxuu ku jawaabay waxaan maqlay nebiga oo cishooyinka ka mida yidhi alqabru awalu manaazili alaakhira qabrigu waa deegaamada aakhiro deegaanka ugu horeeya ee qofku markuu dunida ka yimaado uu ku hoyanayo fain yanju minhu hadduu qabriga qofku ku badbaado famaa bacdahu aysaru minhu wixii ka dambeeyaa waa sahalo wain lam yanju minhu haddaanu qofku qabriga ku badbaadin uu cadaab ku mutaysto famaa bacdahu ashaddu minhu wixii ka dambeeyaa waa ka sii adag yihiin buu nebigu sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam weligay ma arag ayuu nebigu odhanaya sal alla alay slam eegada weligay ma arag muuqaal intii wax lay tusayey jannuu arkay oo naar baa la tusay oo dunida meel badan buu arkay wax badan buu u soo joogay weligay ma arag qabriga meel la mida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel qabriga la mida oo ka argagax badan godkaa qofka la jiifinayo ma arag buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam qubuurahaad arkaysaan in badan oo ka mid ah madow iyo mugdi baa buuxiyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku iftiiminayaa sababtay la madoobaatay meel qura kama daloosho oo iftiinku ka soo gelayo cadceeddaa baxaysa waa idinka arkay marka la aasayo qofka dhoobo iyo dhagax baa lagu malaasaa meel qura inaanu ka neefsan iminka haddii daaqadaha la xidhxidho laydhkana la baktiiyo waa madow waxba arki mayno meel qura u furani ma jirto xabaashu waa aaburantoo waa xidhan tahay waxaa qofka u iftiiminaya qabriga iyo xabaasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalka saalixa ah ayuu rasuulku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka qataada wuxuu sheegay anasna uu warinayo qofka mu'minka ah ama qofku markuu dhinto ee qabriga la dhigo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa durtaba u imanaya isagoo dadkii aasay gawaadhidii baxaysay iyo shanqadhii iyo kabihii iyo codkii iyo waxa uu maqlayo naftaa durtaba la soo gelinaya dabeetana waa la soo fadhiisinaya laba malag baa u imanaya way soo fadhiisinayaan waxaa la hor keenayaa suurad iyo sawir nebi maxamed sawirkiisii baa la hor keenaya ma garanaysaa qofkaasi hadduu qof mu'min ah oo miyir qaba oo diinta ku dhaqma oo ilaahay ka cabsada
oo dunidan is-ilaaliyey hadduu qofkaasi ahaa durtaba wuxuu odhanayaa haa waa rasuulkii ilaahay